mudane injineer Yarisow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada mudane Basmo agaasimaha samafalka agaasimaha warfaafinta ee gobolka dhammaan bahda saxaafadda mudane gudoomiye waxaan ku soo dhaweynayaa degmada Kaxda waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh mudane gudoomiye waxaan ku faraxsanahay inaad maanta mar aad soo booqato markii koobaad iyadoo ku ahayn on isleeyahay waa markii ama labaad ama saddexaad ee timaada degmada Kaxda adiga oo in badan naxariistaada iyo maaragtay garashadaadaba in badan ku kaalmeyn jiray dadka ku tabaalaysan gobolka Banaadir gaar ahaan meelaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaalka waxaan ku faraxsanahay guriyihii aad ugu tabarucday dadka maaragtay danyarta 120 qoys inay caawa ay runtii hooy iyo waxay maaragtay gogol ka dhigtaan iyo waxay usbuuca ugu horeeya ay maaragtay bisha Ramadaan ay ku soomaan bay caawa aad ugu deeqday oo heli doonaan gobolka Banaadir ugu deeqay mudane gudoomiye adiga oo aad iyo aad aan kugu mahad celinayno naxariista iyo garashada ay Ilaahay kugu manaystay mudane gudoomiye ku soo dhawow degmadii Kaxda adiga iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada oo isleeyahay Ilaahay cimrigeeda ha raajiyo walwal badan iyo fikir badan iyo juhdi badan bay gelisay sida guriyahani u suura gali lahaayeen iyo barnaamijkan sidoo u najixi lahaa mudane gudoomiye ku soo dhawaada aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa sida karaamada iyo sharafta leh oo ugu danqanayso bulshada Soomaaliyeed ee aad iyo aad u danta yar ee ku nool gobolka Banaadir ee runtii maalinkii hore ee dambiilka aad u jeedisay hay'adaha samafalka intii ka dambeysay wax badan baa dadkan u qabsoomay waxa u qabsoomay gaar ahaan ilaa 6 jiko oo lagu qoodiyo way ku soo biireen oo hay'adahu way soo kordhiyeen oo subaxiina mushaali lagu sameeyo maalinkiina hal mar oo qadaal loo sameeyo waxa ku soo biiray dad ilaa 1300 oo qoys gaaraya waxay heleen guryo kuwan oo kala ah waxay heleen bacal loo qaybiyo oo ugu dambeysay ee mudane Basma ay halkan ka qaybisay ee dadka indhoolayaalka iyo curyaamiinta aan u qaybinay mudane gudoomiye dadkan oo runtii aad iyo aad dad saga tabaalaysana haddana waxay ku qanacsan yihiin inay caasimadoodii joogaan inay gobolkoodii joogaan inay dalkoodii joogaan aad iyo aad bay ugu qanacsan yihiin hadday ku baahdaan iyo hadday ku dhargaanba maxaa yeelay geedkii hoos seexdaan iyo geedkii hoos harsadaanba waa iyaga iskale cid iga kacma laha cid kuma dhibaateynayso aad iyo aad waxaan kale oo aad ugu qanacsanahay mudane gudoomiye meel hadda inoo jirta 500 oo tallaabo waa meeshii la dejiyay dadkii soo barakacay ee maalinkii la barakiciyay dadka noloshoodu aad iyo aad bay u hersaraysaa hadeer way maaragtay deegaameyn iyo business iyo ganacsi bay ayaguna ay abuurteen runtii haddaad maanta aragto aad baad ugu farxaysaa waxaad leedahay dadkii dhibaatadu ay gaadhay ma aha runtii dadka Soomaaliyeed hadda isbedel baa ka muuqda iyagoo dalkoodii jooga waxay dareemayaan inay ku milmaan bulshadooda iyo xoogooda iyo noloshooda ay wax ku qabsadaan ku soo dhawaada degmadii Kaxda iyo dadkii aad ugu deeqdeen maanta deeqdani waxay ka kooban tahay waa 10 kiilo oo bura 10 kiilo bariis 10 kiilo sonkora caag saddexlaha maacuun 2 joodari 2 sali iyo burjikadii ay wax ku karsanayeen runtii wali ma aysan helin deeq sida u dheelitiran oo ay helaan qoysas way yar tahay waxay la yaaban yihiin joodariyaasha iyo maaragtay gogasha dheeraadka ay helaan marka mudane gudoomiye oraahdaada ku soo dhawaada adiga iyo gudoomiye Basmaba degmadii Kaxda iyo dadkii aad gargaarayseen waa falyatafadal mashkuur agaasimaha samafalka ee gobolka Banaadir dhammaan maamulka degmada Kaxda taliyaha ciidanka booliiska degmada Kaxda saxaafadda waxaa idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdil salaan maanta oo ah maalin sabti ah waxaan deeq soo gaarsiinay maamulka gobolka Banaadir oo deeq soo gaarsiiyay degmada Kaxda qoysas ka kooban 120 qoys oo degmada Kaxda ku dhibaateysnaa deeqdaas oo ka kooban 2 joodari 2 sali 10 kiilo bariis ah 10 kiilo bur ah 10 kiilo sokor ah caag saddexla oo saliid ah maacuun iyo jikaday ku karsan lahaayeen maamulka gobolka Banaadir har iyo habeen wuxuu u taagan yahay dadka dhibaateysan ee barakacyaasha ku nool caasimadda inuu horumar gaarsiiyo inuu wax u qabto maahan tantii ugu horeysay ayaan dhaweyd waxaan soo gaarsiinay degmada Kaxda 250 bac ah oo roobka loogu harsado iyo degmada Garas Baaley sidoo kale iyadana 250 aan soo gaarsiinay waxaana diyaar u nahay markastaba dadka dhibaateysan ee ku nool caasimadda inaan wax u qabano gudoomiye Yarisow
markasta wuxuu diyaar u yahay inuu horumar gaarsiiyo dadkaaniti sidii ay ugu bixi lahaayeen magaca barakac ee noqdaan dad ku nool caasimadda ee shaqaysto shaqo abuurna loo sameeyo mudane gudoomiye ku soo dhawow degmada Kaxda hawsha aan qabanayno waa kana waa taa ujeedid adaana madax ka ah adaana nagu dhiirigeliyay waxaan kugu mahadcelinaynaa dhammaan hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir adigana hogaaminaysid sidaad ugu taagantahay har iyo haween sida dadkan wax loogu qaban lahaa